شيخ سعيد الكريم وحاول لي حديث كورنا يبلغ عني ولو آية يا آيات إن تنصروا الله ينصركم تفسير كذا يعني هذا شيخ صحدا وفصل طريقة صحدا هاي نو فايدة وجزاك الله خير. تفسيرك حديث كوا ظاهر كيس صاو شيء يبلغ عني ولو آية. ده آيات تقانة كوا تجارسين كرت حديث ده تقانة تجارسين كرت. وحنا ده قانون بانا دوقت طلاب هاي. وأنت اسكع معاملته والداعي سو على مسارته إن تسكاد شو الدين تلاقينا عول بعض ولح قادم وبنانا تاس وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلهي وتكبين أبو رانسا نبي قد كبين أبو رانسا نبي نروح من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحل بوت سكا خريس وهذا مقشية ما ميل كوارك تبع أنت لكن هبطو إنه الدين تكمل هاي علمي هذا ولا هذا هاي تتكود الشيء كرته oran mayno qofku ilaa uu caalim noqdo dadka diinta ayaan u sheegin waniga imika idin ku lahaa dhalinyartayda la midka wuxuu sheegay intaad garanayso dad u sheeg weeye laakiin wax kale ha u tallaabin marka waxaynu diidnaa waa maxay waxaynu diidnaa waxa weeye in qofkii oon diintii aan baran ka hadalka diinta lagu dhiiriyo tan intuu halkan soo istaago maanta oo dhan hadlo inagu meenu diidanaa qofku dad aan salaada tukanayno halkaa fadhiya hadduu ku dhaahdo war ilaahay ka baqdo kaalay salaada tukada ma diidantaas hadduu intaa yaqaano intaa u sheega dhib male laakiin khudbad dhan buu jeedinaya maanta o dhan buu diinta ka hadlaya diintiina waxba kama yaqaano suu dhinac walba u qaadaya nin baan maalin soo maray meel dad ka waaninayo le dad buu waaninaya markaasaan kuhi waad fiican tahay laakiin diinta baro suu hi may siinu bilaal cinda allahi shiin ayuu hi nebigu siinu bilaal cinda allahi shiin bilaal siinkiisu ilaahay agtiisa shiin buu ka yihi macnaa waxaana rigaaxayaan jejebinaya o dhami waxba dhib ma laha waayo bilaal baan shiinka kari jirin oo markuu eedaamaya buu odhan jiray ashhadu an laa ilaaha ila allah subxaan allah say suurtagal ku tahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam eedaanka u diro u xil saaro midaan eedaanka kar ahayn iyadoo ay buuxaan dad karayaan markaasay saxaabadii nebiga uga soo cawdeen buu ihi markaasuu nebigu ku uhi waar iska daaya siinu bilaal cinda allahi shiin sheekh xadiiskaas xaguu ku qoray anuu markaa ma maqal meel wuxuu ihi culimadeedaanu ka maqalay soo weydii bu igu ihi almuhim yaman baan beriyaa ka iman jiray yaman markaan ku noqdeen xadiiskii baadho xadiis laa asla lahu xataa mawduucnimada sii dhaafsiisan kadiba mukhtalaqa dad samaysteen buu noqday nin kale intuu masaajid ka istaagay buu yihi cumar ibnu khadaab markii uu dhintay ee xabaasha la dhigay ayay labadii malagu yimaadeen se yidhaha man rabbuka suu man rabbukuma antum intuu indhaha u giiray orod bay isdhigeen buuri labadii malag subxaan allah yaa kuu sheegay ile nebigu uu ka geeri dambeeyey soo ma cumar iyo labada malag waxaa qabriga ku dhex maray adiga yaa kuu sheegay yaa kaaga soo warramay ile haddii nebigu uu noolaan lahaa nebigaa wixii loogu sheegay soo ma bal cidda kuu sheegtay aad u garo marka qofku intuu garanayo yuu dhaafi ee uu hubo weliba wax kaliyu isku geli welibana diinta ha barto waxaa khalada qofku inuu yidhaahdo dadkiibaa gubanaya dadkiibaa fasahaaday dadkiibaa kharibmay oo dacwaddan ka shaqaynaya isagiina tiisa ay dayacantay salaadiisu aanay sax ahayn qur-aankii aanu xabad gara faatixada dilaa ka baxaanu si saxa u akhriyeen oo khaldayo khalad intaad garanaysa dadka u sheeg taadana ha ilaabin naftaada islaaxi diinta baro kuwa kugu dhow ka bilow marka xadiidkan macnihiisu waxa balliqu canii walow aaya canii buu hi nebigu sooma wax aniga aad iga haysaan dadka gaadhsiiya macnihiisu waa sidaa mu odhan nebigu xun dadka gaadhsiiya balliquu canii nebigana ilahay muxuu ku uhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk wixii lagugu soo dejiyey dadka gaadhsiiya marka waxaad dadka gaadhsiinaysa waa inaad hubto inuu yahay wixii ilaahay soo dejiyey wax rasuula ka sugnaaday inuu yahay waa inaad hubto saas ayuu xadiidku tilmaamaya manaawi markuu sharaxaya wuxuu idhaahdaa waxa dadka la gaadhsiiye waa laba midkoodu alfaad maxfuuda iyo macaani mafhuuma inaad qur-aankii baad xifdisanta dad unto macanihiisa ma taqaanid qur-aanka dadka gaadhsiiyo xifdisii oo siday u akhri lahaayeen bar
macnihiisaba haddaanad aqoon de waa tabliiqtaas waa gaadhsiin waxa labaa dadka la gaadhsiina waa macano shareecada laga fahmay oo aayaadka qur-aanka macno ay tusanayeen axaadiistu macno ay tusinaysa taana waa inaad taqaan dee aayadda tafsiirkeedii iyo xadiiska macnihiisa xataa axaadiista qofku inuu iska macnaysta xataa dadka dalabatulcilmiga ah axaadiista soo marta waa inay ula noqdaan kutubta ay culimadu ku sharaxeen maa inaad luqa alcarabiya xadiiska iskaga macnaysato khalad baad ku geli kartaa taa lafteeda marka haddaanad cilmina xifdisanayn walaa kelima cilmi aad fahamtay oo macnihiisi aad haysana aanu jirin faaqidu shay laa yucطihi qofku waxaanu hayn ma bixiyo sooma waxaad haysaad bixin karta wallahu aclam